bismillaahi raxmaani raxiim subax wanaagsan halkan waa codka gobolada dhexe waxaad ku soo dhawaataan warka subax qodobada aan idin hayno waxaa ugu dooroon wafuud baarlamaan ah oo ka kala socota Hirshabeelle iyo Galmudug oo ay hogaaminayaan ku-xigeenada guddoonka baarlamaanka Galmudug oo magaalada Muqdisho kulan kula qaatay gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mareykanka oo sheegay duqeymo mar kale uu ka fuliyay qaybo ka mid ah gobolka Shabeellada Hoose inuu ku dilay 5 xubnood oo ka tirsan Al-Shabaab hay'adda NISA oo sheegtay in madaxii amniyaadka gobolka Banaadir ee Al-Shabaab la dilay Ra'iisul Wasaare Khayre oo ku dhawaaqay in la laba jibaari doono mashaariicda horumarineed ee dalka laga fuliyo iyo shaqo abuur loo sameeyo dhalinyarada Soomaaliyeed kiiskii ugu horeeyay ee cudurka coronavirus oo laga diiwaan geliyay dalka Turkiga iyo wasiirka wasaaradda caafimaadka UK oo laga helay cudurka coronavirus qodobadaas iyo kuwa kale ayaad ku dhageysan doontaan warka subax hadii Allah wadala laga helo balse imika warar ku saleysan xaqiiqada ka dhageysa mar walba warbaahinta codka gobolada dhexe idaacad lagu qabo kalsooni la hubo wararkeeda waa warbaahinta codka gobolada dhexe warmoog waa qof aan la socon wararka codka gobolada dhexe ee ku xirnow oo ka dhiga wehelkaaga koowaad codka gobolada dhexe mar kale kulanti wanaagsan waa subaxnimo Arbaca taariikhdu ay ku beegan tahay 11 bisha 3 ee Maarch sanadu waa 2020 qodobadaas aad maqasheen waxay ahaayeen warkana subax ee saaka kuwooda ugu doorka roon imikana warkii oo faahfaahsan wafdi ka socda baarlamaanada Hirshabeelle iyo Galmudug ay hogaaminayaan ku-xigeenada guddoonka baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug ayaa kulan kula qaatay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mahad Cabdulla Cawad gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mahad Cabdulla Cawad ayaa xarunta guddiga iyo gudiyada Villa Hargeysa waxa uu ku qaabilay xubno ka tirsan xildhibaanada baarlamaanada dowlad goboleedyada Hirshabeelle iyo sidoo kale Galmudug xubnahan waxa hogaaminayay gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug iyo sidoo kale gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug Faaduma Faande mas'uuliyiin ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka Hirshabeelle ayaa sidoo kale qayb ka ahaa ugu horeyntii gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa waxa uu soo dhaweyn u sameeyay xubnahan wuxuu sidoo kale u sheegay ugana warbixiyay muhiimadda ay leedahay wada shaqeynta golayaasha xeer dejinta dalka waxa uu tilmaamay in muhiimad gooni ay leedahay in si dhow ay u wada shaqeeyaan baarlamaanada dowlad goboleedka iyo sidoo kale baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxa sidoo kale la isla gorfeeyay oo laga hadlay qoondada haweenka ay ku yeelanayaan baarlamaanada gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxa uu sheegay muhiimad gooni inay leedahay in haweenka kaalin weyn ay ka qaataan dib u dhiska iyo soo kabashada dalka gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug iyo gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug wafdigan hogaaminayay ayaa ugu horeyntii waxa ay ka hadleen soo dhaweynta uu sameeyay Mahad Cabdulla Cawad gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka Federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale kulankan ay kula yeesheen Villa Hargeysa gabdhaha Hirshabeelle iyo gabdhaha Jubba koonfur galbeed waxba ku soo socdo waan idin jeednaa waxaan rabnaa in baarlamaanada dhan u gudbisid oo naga masuul noqotaan guddoonka iyo dawladda iyo dadka dhan waxaan ka codsanaynaa gabdhahaas in si gooniya loola shaqeeyo haddii gabdho kale Jaanis la siin karno in lagu soo daro xildhibaanada soo bixi doono labadaas gobol ka soo bixi doono kuwa joogayaan la taaban kuwa kale ha lagu soo daro inaan aragno qaabka u shaqeeya baarlamaanka Federaalka Soomaaliya qaabka kala duwan xafiisyada kala duwan habka u shaqeeyo intaas waxay noo tahay tababarna way noo tahay way arrinona waan ka qaadan doonaa insha Allah ugu dambeyntii gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mahad Cabdulla Cawad ayaa waxa uu tilmaamay inuu aad ugu faraxsan yahay in kulankooda uu ahaa mid miradhal ah isla markaasina ay isla gorfeeyeen arrimo ay ka mid yihiin wada shaqeynta xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedyada Hirshabeelle iyo Galmudug iyo sidoo kale baarlamaanka Soomaaliya idinku soo dhaweynaynaa maanta iyo mar dambaba inaad leedihiin yacni baarlamaan federaal ah oo ka kooban 2 aqal oo jaalkiina ah oo aad ku soo hiran kartaan oo aad waxa allaaleeya wixii awoodooda ah oo u baahan tihiin aad ka soo raadsan kartaan horeyna baarlamaanadii idinka horeeyay sidaas oo kale wada shaqeyn iyo khibrad isweydaarsi u lahaa waxaan codsanaynaa oo aanu baarlamaanada Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed ka codsanaynaa in ay tixgeliyaan qoondada haweenka
ee ay xaqa u leeyihiin gabdhihii horena fursad la siiyo gabdho cusubna fursad la siiyo ayaanu ka rajaynaynaa. Maraykanka ayaa sheegay howlgallo duqeymo ah oo mar kale ay ka fuliyeen gobolka Shabeellada Hoose in ay ku dilaan 5 xubnood oo ka tirsan Al-Shabaab. war ka soo baxay taliska howlgalka Maraykanka ee Afrika ee loo soo gaabiya Africom ayaa lagu sheegay in duqeyn cirka ah oo ay geysteen diyaaradaha duuliye la'aanta ee drones ka loo yaqaano ee laga leeyahay dalka Maraykanka lagu dilay xubno ka tirsan Al-Shabaab. Saraakiisha howlgalka Africom ayaa waxa ay sheegeen in duqeyntaani ay ka geysteen deegaanka Channel ee gobolka Shabeellada Hoose galinkii dambe ee Talaadada ayna ku dileen 5 xubnood oo ka tirsan Al-Shabaab sida lagu sheegay warkani ka soo baxay taliska ciidamada Maraykanka ee Afrika loo soo gaabiya Africom. Maraykanka ayaa waxa ay sheegeen in fulinta howlgalkan ay ka gacan siiyeen dowladda federaalka Soomaaliya isla markaasina labada dhinac ay xaqiijiyeen in aysan waxyeello gaarin dadka shacabka ah ee ku sugan Channel oo ah goobta duqeynta lala beegsaday. Colonel Chris Carles waxa uu sheegay in duqeynta looga hortagay Qatar uu sheegay in Al-Shabaab ay u wadeen dowladda federaalka Soomaaliya AMISOM iyo sidoo kale danaha Maraykanka ee Afrika iyo weerarada Al-Shabaab ay qaadi lahaayeen sida uu hadalka u dhigay. Maraykanka waxa uu Soomaaliya ka fuliyay sanadan 2020 ee lagu guda jiro bisha 3aad weeraro kor u dhaafaya amaba gaaraya 20 weerar war ay si wada jira u soo saareen dowladda federaalka Soomaaliya iyo taliska Africom ayaa waxayna ku sheegeen in intooda badan weeraradani laga gaaray ujeedkii laga lahaa sida ay hadalka u dhigeen. taliyaha ciidamada Afrika ee ka howlgala gudaha Soomaaliya waa ciidamada Africom ee ka howlgala gudaha Soomaaliya oo la hadlay dhankiisa laanta afka Soomaaliga ee VOA-da waxa uu sheegay inay si laba jibaari doonaan duqeymaha ay la beegsadaan xarumaha Al-Shabaab ay kaga sugan yihiin Soomaaliya. waxa uu sheegay inuu aaminsan yahay taasi in guulo lagaga gaari karo Al-Shabaab isla markaasina duqeymaha ay xal u arkeen Maraykanka ayna si laba jibaari doonaan. sanadan ayuu tilmaamay duqeymaha inay ka sii badan doonaan sida hore maadaama ay aaminsan yihiin in Al-Shabaab sida kaliya ay kaga guuleysan karaan ay tahay in duqeymo la beegsado. dhinacooda wali ma jiro wax war oo ka soo baxay Al-Shabaab oo ay kaga hadlayaan duqeymahan ayaa warka markale ka soo saareen ciidamada Africom ay ku sheegayaan in Channel ay kula beegsadeen ayna ku dileen 5 xubnood oo ka tirsan Al-Shabaab. hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA ayaa sheegtay in madaxii amniyaadka gobolka Banaadir ee Al-Shabaab la dilay. hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA ayaa sheegtay in magaalada Bu'aale ee gobolka Jubbada Dhexe lagu dilay Muuse Macalin oo sida lagu sheegay qoraalka dhawaan iska casilay madaxa amniyaadka Al-Shabaab ee gobolka Banaadir. war ka soo baxay NISA ayaa lagu sheegay hogaamiyaha Al-Shabaab Axmed Diiriye in uu amray in la xiro madaxa howlgelinta amniyaadka Al-Shabaab ee ka howlgala gobolka Banaadir kaasi oo magaciisa lagu sheegay Cumar Maxamed. Bu'aale ayaa lagu dilay Muuse Macalin oo horey iskaga casilay madaxii amniyaadka gobolka Banaadir. sidoo kale waxaa xabsiga loo taxaabay madaxa howlgelinta amniyaadka gobolka Banaadir Cumar Maxamed iyadoo la fulinayo amarka ka soo baxay Axmed Diiriye ayaa lagu yiri qoraal Twitter-ka ay ku daabacday hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA. marar badan hay-adda NISA ayaa sidaan oo kale waxay u soo bandhigtay xogo ku saabsan Al-Shabaab iyo sidoo kale isbedelo lagu sameeyay hoggaanka Al-Shabaab iyadoo tani ay tahay arrimo si weyn ay ugu dhaleelaan qaar ka mid ah siyaasiyiinta arrimaha siyaasadda falanqeeya taasi oo u arkaan in ay qaadatay hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA door aan looga baahnayn ase yeeshee shaqadeeda ay tahay sidii howlgallo lagu samayn lahaa amaba amniga lagu xaqiijin lahaa. taa beddelkeedana ay isticmaashay in xogaha Al-Shabaab oo kaliya ay soo tabiso waa sida ay ugu eedeeyeen mas'uuliyiin ka tirsan kuwa mucaaradka isla markaasina dhaliilaya habka door amaba shaqo ee ay qaadatay xilligan hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA. madaxweynaha Kenya ayaa bilaabay qorshe uu doonayo in Abiy Ahmed uu uga dhaadhiciyo inuu dhexdhexaadiyo wadamada Soomaaliya iyo sidoo kale Kenya kadib xiisada ka soo cusboonaatay xadka labada dhinac.
warar aynu helayno ayaa waxa ay sheegayaan in madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Muigai Kenyatta uu bilaabay in xiriir toos ah uu la sameeyo ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed Cali si loo dhexdhexaadiyo wadamada Soomaaliya iyo sidoo kale Kenya oo xiisad ay ka dhaxaloosan tahay. wasiirka arrimaha gudaha Kenya ayaa waxa uu gaaray magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya halkaasi oo kulan uu kula qaatay ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed oo uu kala hadlay dadaalada la doonayo in lagu qaboojiyo xiisada ka dhex taagan Soomaaliya iyo sidoo kale Kenya. wafdiga uu hogaaminayo wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda Kenya ayaa waxa ay u tageen halkaasi sidii ay kula kulmi lahaayeen ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya waxaana safarkooda u imaanaya kadib markii magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka ay kula kulmeen madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayna u soo gudbiyeen warqad casuumaad ah oo ay kaga wadeen madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta. qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha Kenya ayaa lagu sheegay in wasiirka arrimaha gudaha Kenya uu u diray Uhuru Kenyatta si uu ula soo kulmo Abiy Ahmed Cali ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya. xogaha waxa ay tilmaamayeen in uu doonayo kulanka uu kula yeelanayo magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya Uhuru Kenyatta madaxweynaha Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo in dhankiisana uu goobjoog ka ahaado ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya si uu u dhexdhexaadiyo labada dhinac. dowladda Kenya ayaa walaac badan ka muujisay xiisada markan ay ka dhaxaloosan Soomaaliya iyo sidoo kale Kenya iyadoo Soomaaliya si cad ay u sheegtay in qaramada midoobay ay u gudbin doonto dacwada ka dhan ah dowladda Kenya waxayna ku eedeysay dowladda Kenya in si toos ah ay ugu soo xadgudubtay amaba faragelin ay uga wado gudaha Soomaaliya taasi oo ah mid ay ka duuleyso dowladda Kenya. dowlado badan oo caalamka siyaasiyiin xildhibaano baarlamaanka Kenya ka tirsan iyo qaybaha kala duwan ee culimada Kenya ayaa ku kacay Uhuru Kenyatta iyagoona ugu baaqay in sida ugu dhaqsiyaha badan ciidamadiisa uu uga baxo Soomaaliya uuna ka joojiyo faragelinta uu ku hayo dowladaha dariska oo Soomaaliya ay ugu horeyso. taasi ayaa ku qasbaysa Uhuru Kenyatta in uu bilaabo kulamo xal u raadina oo uu kula gelayo xal dowladda federaalka Soomaaliya waxaana markan doonayaa inuu u soo maro ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed Cali oo uu arko inuu yahay shakhsiga ugu dhow ee doorka muhiimka ah ka qaadan kara dhexdhexaadinta Soomaaliya iyo sidoo kale Kenya. warka subax ee codka gobolada dhexe ayaa dhageysanaysaan FM 89.9 MHz markan dhinaca akhbaaraadka dibadda. kiiskii ugu horeeyay ee cudurka coronavirus ayaa laga diiwaan geliyay dalka Turkiga. wasiirka wasaaradda caafimaadka Turkiga oo shir jaraa'id ku qabtay gudaha dalkaasi ayaa waxa uu sheegay in qofkii ugu horeeyay ee qaba cudurka coronavirus laga helay gudaha dalka Turkiga. wasiirka waxa uu ka codsaday muwaadiniinta dalka Turkiga u dhashay in aysan dalka dibadda uga bixin si loo yareeyo in uu faafo cudurka coronavirus. waxaa sidoo kale wasiirku uu ku baaqay in la xadido dadka dibadda kaga imaanaya Turkiga taasi oo khatar badan laga wajihi karo isla markaasina baaritaano xoogan in lagu sameeyo ayuu soo jeediyay. wasiirka caafimaadka dalka Turkiga waxa uu tilmaamay iyada oo laga duulayo cudurkani saameeyay dunida inteeda badan amaba dalalka ugu waaweyn dunida in Turkiga uu qaadan doono door muhiim ah oo kaga aadan sidii cudurkaasi uu dalkiisa kaga cirib tiri lahaa amaba uu u yareyn lahaa khatarta uu ka geysto gudaha dalka Turkiga. isla cudurka coronavirus-ka waxa uu ku dhacay wasiirka caafimaadka ee dowladda UK. waxa ay sheegtay wasiirka caafimaadka dalka UK in cudurkani uu ku dhacay isla markaasina iyadaha ay isku karantiishay gurigeeda si aysan cudurkaasi dhankeeda u sii faafin. wargeyska The Times ayaa waxa uu ku waramayaa in ay boqolaal qof kula kulantay wasiirka baarlamaanka toddobaadkii tagay isla markaasina ay ka qayb gashay munaasabad uu ku sugnaa ra'iisul wasaare Boris Johnson. waxaa soo badanaya kiisaska loo diiwaan gelinayo cudurka coronavirus ee dunida kaasi oo ka soo bilowday markiisii ugu horeeyay magaalada Wuhan ee dalka China haddana ku sii fidaya qaybo badan oo ka mid ah dunida. guud ahaan saaxiibayaal waxaa intaasi ku dhan warkii subax oo aad kala socoteen codka gobolada dhexe FM 89.9 MHz tan iyo kala dambe waxaa idinkaga tagaya ammaan Allah.